diis waay rasuulka calaih slam laga soo wariyey qofkii dukada laba rakaco oo qiyaamu leyl ah salaada subaxa ka hor oo markii labada rakaco uu dhammeeyo gacmaha uu kor u taago oo uu akhriyo 6 duco 6 duco waa ka kooban yihiin ducada koowaad waxa waaye laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir laba inuu dhaho qofka alxamdu lilah waa midda labaad 3 allahu akbar 4 subxaana allah 5 laa ilaaha ila allah 6 laa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliy alcadiim intaasi markuu saa isugu xijiyo oo qofka laba uu weydiisto labadaasi wuu helayaa oo uu weydiisto 1 ilaahu ii dembi dhaaf dembigiisoo dhan waa la dhaafayaa 2 duco kasta oo wuxuu rabo hadduu ilaahay weydiisto ilaahay wuu siinayaa mar labadan ku soo celinayaa qofkii akhrista ducada ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir oo ku xujiyo alxamdu lilah oo midda labaad ah 3 allahu akbar 4 subxaana allah 5 laa ilaaha ila allah dan markaasi uu dhaho midda 6aad laa xawla walaa quwata ila billahi caliy alcadiim oo ilaahay uu dhaho allahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf ilahay dembigiisa uu dhaafayaa kadib uu weydiisto duco kasto wax alla wuxuu raba ilaahay uu weydiisto ilahay wuu ka aqbalayaa waxaa shardi ah oo keliya 3 1 qiyaamuleylka salaada fajr salaada subax ka hor 2 rakac inuu tukado oo kadib ducadan uu akhristo 2 inuu yaqiinsado oo uu rumaysto ilaahay inuu siinayo wuxuu weydiistay 3 xaaraam iyo macsi oo dhan inuu ka ilaaliyo xubnaha jirkiisa oo dhan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheer gareeya qof kasta oo muslim ah oo af soomaali ku hadla oo fahmayo oo saaxiibka ah oo walaalka ah oo famil ah gaarsii si oo qof walba ducadiisii loo aqbalo qofkii leh muraad hadduu xanuunsan yahay ilaahay uu caafiyo qofkii leh muraad haddii ilmo uu raadinayo ilaahay ilmo uu siiyo qofkii leh muraad hadduu shaqo raadinayo shaqo xalaal ilaahay uu siiyo qofkii leh muraad ah ilmihiisa oo caasiyaala inuu ilaahay baariyaal ka dhigo qofkii leh xaas qofkii ah ama ninkeeda ilaahay baari inuu ka dhigo ama ninka duya xaaskiisa inuu ilaahay baari ka dhigo uu weydiisto qofkii oo faqri ku jiro ilaahay subxaana wa tacaala inuu hina uu siiyo hina nafsi iyo hina almaal labadaba qofkii deyn u leeyahay ilaahay inuu deynta ilaahay subxana wa tacala uu ka gudo intaas oo dhan waa intaa keliya tallaabadaas aad qaadaysaa ilaahay subxana wa tacala waa kaa aqbalayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu